xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa xaflad si weyn loo soo agaasimay ku qaabilay taageerayaal miisaan leh kuwaasi oo kasoo dogorogtay xisbiga mucaaradka ee UCID. munaasabadan oo ka dhacday xarunta dhexe ee xisbiga wadani ku leeyahay gobolka Togdheer ayaa waxaa kasoo qayb galay taageerayaal tiro badan oo luulayay calanka xisbiga mucaaradka ee wadani, cuqaal, haween iyo mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee heer gobol. waxaana ugu horeyntii xafladaasi hadallo ka soo jeediyay mas'uuliyiintii iyo taageerayaashii cududooda ka hilaaciyay xisbiga wadani, iyagoo oo sheegay in xisbiga wadani yahay xisbiga waqtigan keeni karo horumar iyo isbedel ballaaran oo qarankani ku naaloodo. taageeradayna siiyeen gobollada oo dhammi iyo dibaddaba maanta waxaa noo farxad ah annagoo isku midkii inaanu ku wada biirno xisbiga wadani. xisbiga waxaanu u nahay gargaar ku ilaalinaya nabadda iyo horumarka dalkeenna. waxaanu ku biirinaynaa waxaanu ahayn xisbi ku tala galay dalka inuu la wareego oo madaxdiisii leh oo siyaasiyiintiisii leh. waanu ku tala galay inaan la wareegno xisbiga dalka la wareegno. wixii inagu dhacay waa wada ka wada warqabtaqlo ka daba tegi maayo. wixii tala iyo tusaale aanu haynay waxaanu ku biirinaynaa xisbiga wadani. ta kale walaalayaal waxaa ogtihiin inay waddankan abaari ka jirto. laba abaarood baa ka jira, laba abaarood. mid waa kulmiye, midna waa abaarta ilaahay keenay. labada waxa xun abaarta kulmiyaa xun. war inaynu abaarta kulmiye iska qabanno soo maynaa soo biirin. waxaan halkan ka sheegayaa waxa weeyaan waxa laynoo diiday hudheelkii xafladda lagu qabanayay. xukuumaddii kulmiye markay itaal kala weyday waxay biciidsatay inay caburin iyo cadaadis la daba socoto taageerayaasha ilaa markay iyadu cid ku biiraysaa ma jirtee. marka hore waddani waanu bahownay xisbigaana marka la leeyahay garabka aqlabiyadda anigu waxaan qabaa xisbigaasi inuu dhan yahay. ayaannu halkan inka waxaa jooga xubnihii heer qaran ugu biiray xisbiga waddani iyo garabyadoodii waanay taaki halkan joogin uun garabkii haweenka heer qaran. hadal badan uma bixin anugu waxaan leeyahay waddani diidow dilaac. waddani diidow dilaac. bulsho yahay ballanteenu marka hore waa waddani. ballanteenu waa waddani. kadib waxaan soo dhawaynaynaa taageerayaashii ka soo yaabay xisbigiisa Allah soo dhawaan. waxaan leeyahay barasaabkan yar fariin u diray halkan message. waxaan leeyahay barasaab waa nasiib daro. ka kale gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Togdheer Xuseen Kahdi iyo mas'uuliyiinta heer gobol ayaa taageerayaashani ku soo dhaweeyay xisbiga wadani, iyagoo oo fariin adagna u diray barasaabka gobolka Togdheer oo xayiraad ka saaray hoteelka ay munaasabadani ka dhici lahayd. barasaabkii gobolka tahay bulshada Soomaaliland ama bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer ayaa barasaabka waxaad inaad ilaaliso nabadgelyada Soomaaliland. laakiin waxaa nasiib daraa inaad maanta tiraahdo markii la yidhi taageerayaasha wadani soo galaya inaad tiraahdo meelaha wada loo qaybiyo. waa nasiib daraa leeyahay garabkii xisbiga ka soo go'ay ama aqlabiyadda waxaan leeyahay ku soo dhawaada xisbiga wadani. waxaan kaloo halkan maanta maxaa ka hadlayaa xisbigii kulmiye oo maanta ay u hadhay diga khaliya. waxaan leeyahay war kulmiyow war ha ceewoobin. ku soo dhawaada dhammaan taageerayaasha. waxaan leeyahay kulmiyana dee cillaha kaga tegine waa dhowr iyo 10 qof ma kaga tagnaa. maanta waxaa sharaf inoo ah inay nagu soo biiraan garabka aqlabiyadda UCID oo ay hogaaminayeen madaxda aad garanaysaan xildhibaan maxamed faarax qabiile iyo gudoomiyaha garabka aqlabiyadda master sabca iyo madaxda faraha badan ee aad garanaysaan kulligeed bay halkan ka muuqata. waxaanu idinku soo dhawaynaynaa gamco furan haddii aanu nahay xisbiga wadani ee gobolka Togdheer. waxaanu leenahay walaalayaal soo dhawaad xafladda. waxaanu ugu talagalnay meel intan ka ballaaran u dheel weyn
laakiin mistake dhacay ama xaaladda dhacday in xukuumadda ama barasaabka gobolku inuu joojiyey in la qabto xafladaha oo hudheeladii amar siiyey waa ogtii Soomaalidu waxay tiraahdaa haddii la waayo dayaha la waayo xidigaha lagu gudaa labaad mar saddexaad waxaan gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhaweynayaa garabka aqlabiyadda xisbigii UCID ee maanta ku soo biiray xisbiga wadani Cabdiraxmaan Roble Cabdilaahi Cabdiraxmaan Trike TV-ga caalamiga Kalsan TV magaalada Burco.